madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu maanta halkan Villa Soomaaliya wada hadallo kula yeeshay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Mudane James Iswaan. wada hadallada dhexmaray madaxweynaha iyo Mudane James Iswaan waxay ahaayeen runtii kuwo miro dhal ah oo diiradda lagu saaray sidii xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo dhammaan hay'adaha qaramada midoobay ee ka shaqeeya Soomaaliya ay kaalin mug leh uga qaadan lahaayeen dowlad dhisidda Soomaaliya si loo sii dardargeliyo horumarka ay dowladda federaalka Soomaaliya ku tallaabsatay 2 sano iyo xogaagii uu shaqeynayay maamulka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. runtii waxaa horumar muuqda laga gaaray dhinacyada amniga, kobcinta dhaqaalaha iyo xoojinta hay'adaha dowladda. waxaan rajeynaynaa in xafiiska UNSOM iyo ergeyga cusub ee Mudane James Iswaan inay runtii kaalin ka geystaan sidii dowladda federaalka Soomaaliya ay u xaqiijin lahayd hadafyada